warkaan dhiisay war بسم الله الرحمن الرحيم runtii maanta waxay ka mid tahay maalmihii uu ku fatahay webiga Shabeelle magaalada Tanbaladweyne maamul ma lahan dawlad dhexe ma lahan mid Hirshabeelle ma lahan cid macnaha dadkaan u maqan ma lahan kaliya Ilaaha u maqan marka waa dareemi kartaan wacyiga lagu jiro waxa ugu sii daran dadka dhiigooda macnaha laga ganacsanaya maxay lacagta shilin Soomaaliga ma ka shaqeynaysa magaalada tan lacagta elektrooniga kaliya shaqeynaysay lacagta elektrooniga waxay ka baxdaa mobilada sidaa darteed mobiladii korontada shirkadda dayax way jartay hadday jartay teleefanadii dadka way dameen maxay wax ku iibsanayaan maxay wax ku cunayaan biyaha ka sokow waxa uga daranba lacagta dadku way wax ku gadalayaan ama wax ku cun lahaayeen EVC la yiraahdo lacagta elektrooniga ahaydna mobiladii way dameen kadib markii shirkadda korontada dayax ay jartay dabkii magaalada Tanbaladweyne ay siinaysay maxaa yeelay dad ayay dishay korontada sidaas darteed koronto la'aan ka dhacday teleefanadii way dameen bulshadana waxay wax ku iibsadaan ay laayiin ummadda reer Hiiraan maamul Hirshabeelle oo maqan ma jiro maamul oo farmaajo hogaaminaya dawladda dhexe oo maqan ma jiro kaliya Ilaaha oo maqan marka waxaan dhihi lahaa Allahiina barya Ilaahay baa keenay marka wuxuu Ilaahay keenay waxa waaye alxamdulillah hadda inta wada ilma runtii aniga waxaan u socdaa hadda xaafad kamid ah xaafadaha magaalada Beledweyne ama cilmi loo soo kala soonkaan ku socdaa birina waxaan rabaa inaan u sii guuro ceel jaale meesha dadku u baxeen marka wuxuu Ilaahay keenay waxa waa alxamdulillah waa inaan ceel jaale deegaan ma ku leedahay ilmaha meel ay saxraanayo ma la helaa weligay ma tagin maanta ay ugu horreysay salaamu calaykum calaykum asalaam